kulan waxaan wanaagsan idil ahaantiin baa meel walba joogtaan iyo si walba isra maqalkan idiin soo gaadhay ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho xilli maalmihii ugu dambeysay ay magaaladu la ciirciireysay dilal qorsheysan iyo waliba falal amniga lid ku ah tan iyo inta lagu dhawaaqay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir uu yeelanayo waxaa dhacay saddex fal oo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho kuwaasi oo lagu khaarijiyay mas'uuliyiin hore iyo waliba askar ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya dhanka kalena shirkii ka socday magaalada Muqdisho ay ku kulansanayeen wasiirka maaliyadda ee dawladda federaalka iyo waliba wasiirada maaliyadda ee maamul goboleedyada oo gabi ahaanba fashil ku soo dhamaaday haddaba maxay tahay qodobada la isku mari laayahay warkeena ayaad ku daawan doontaan hadduu eeba yiraahdo dawladda Ethiopia oo fariin la yaab loo soo dirtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya haddaba jawaabtaasi maxay tahay xilli waliba dalkaasi uu la dhacayo dagaalo hareeyay oo u dhaxeeya ururka TPLF iyo waliba dawladda federaalka ee Ethiopia waxay tirsanaysay dhaliilo waaweyn oo la xidhiidha in dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ay ka helisay isla markaana ay garab siisay wadanka Masar fariintan iyo waliba waxyaabaha ay xambaarsan tahay halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa hadduu eeba yiraahdo wasiirka ka tirsan xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya walaac ka muujiyay falalka ururka al-shabaab maalmihii ugu dambeysay ay kula kaceen dadka rayidka iyagoo dhanka kalena walaac xooggan ka muujiyay in ay haatan ku dhaqnaan karaan ama ay joogi karaanba magaalada Muqdisho waxaa soo badanayay falal ay ururka al-shabaab ku dhaqaaqay kuwaasi oo ka geysteen gudaha gobolka Hiiraan iyo waliba magaalada Muqdisho kuwaasi oo ay u eg in ay isirnaceeb haatan ku dhaqaaqeen ururka al-shabaab madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo safarkiisii tobnaad wadanka dibadiisa uga baxayo haddaba wadanka uu tagayo waa xagee warkeena ayaan idinku soo gudbin doonaa ugu dambeyntiina wadanka Ukraine wuxuu taageero la yaab leh u muujiyay wadanka Soomaaliya waliba wadankaasi asagoo la dhacayo weeraro joogto ah iyo waliba duulaan uu ku qaaday wadanka Russia haddaba taageerada Ukraine ay u muujin karto Soomaaliya xilligan maxay tahay warkeena ayaan idinku soo gudbin doonaa hadduu eeba yiraahdo guud ahaana qodobadaasi kuwa kale faahfaahsan ayaan halkan ugu wadaagi doonaa barnaamijka waxay weeliyay saaxiibka Santaag oo isha ku hayay wararkaasi iyo waliba warar kaleeto oo xiiso leh Santaag soo dhawow maanta waxaa la magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir uu yeelanayo magaalada Muqdisho waxay la dhacaysay dilal joogta qaraxyo iyo waliba xasuuq lagula kacay dadka shacabka balaado soo koobayo gudoomiyahan iyo waxaan ka naqan aad iyo aad baad u mahadsantahay ummadda Soomaaliyeed waa salaamayna madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ajandihiisii hore la ogaa isla markaana tan iyo inta xilka uu imaadayba magacaabista iyo xilka qaadista sida joogtada ah waday ayaa maanta wuxuu magacaabay gudoomiye cusub oo loo magacaabay noqonaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada bedelayana gudoomiye hore 3 sano ee la soo dhaafay xilka saarnaa ee ahaa gudoomiye Cumar Filish oo run ahaantii ahaa shakhsi aad u maaragtay active u ah oo aad u firfircoon 3 sano ee la soo dhaafayna qayb ka ahaa horu socodka dalka Soomaaliya iyo dib u dhiska iyo dib u heshiisiinta iyo gobolka Banaadir oo run ahaantii noqday midka ugu fiican gobolada dalka Soomaaliya oo si fiican bulshada gobolka Banaadir kuwa sugan ay ahaayeen dad aad isku aaminsan oo aad isdhexgalka bulshada iyo sidoo kaleeto horu socodka degmooyinka ciribtirka ururada argagixisada la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kaleeto dableydii hubaysnayd iyo dhammaanba ilaalinta shacabka ka soo shaqeeyay oday Soomaaliyeedna ah ayaa wuxuu noqonayaa shakhsiga banayn doona kursiga waxaana lagu bedelayaa gudoomiyahan cusub ee hadda uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo magacaabay maalmo ka hor ayaa xafladii u dhigtay Cumar Filish sanad guuradii saddexaad ee ka soo wareegtay xilligii loo magacaabay xilli uu ka hadlayay dad badan oo halkaas iskugu imaadayna uu la hadlayay ayaa wuxuu sheegay in xilka qaadistiisu ay dhowdahay oo xilka uu banayn doono shakhsiga lagu bedelayana uusan garanaynin isla markaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mar hore uu diyaariyay qofkii isaga bedeli lahaa kursiguna uu yahay meerto cid walba oo la keenana uu la shaqayn doono isla markaana oo halkii isaga uu ka maaragtay uu ku joojiyay horu socodka iyo waxqabadka dadka dalka Soomaaliya oo shakhsigaasi halka ka sii wada doono kursigana isagu uusan la dhalanin oo qof walba oo imaada uu noqonayo gudoomiyaha gobolka Banaadir uu noqonayo oo uu soo magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda dhawowday isagoo marka iyada go'aan uu xusay in qofka lagu bedelayo uusan garanaynin balse uu mar horeba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu diyaariyay shakhsiga bedeli lahaa maanta ayay soo shacbaxday gudoomiye cusub ayaa la soo magacaabay
magacaabay shacabka gobolka banaadirna isha ayay ku hayeen maalmihii ugu dambeeyeyba shakhsiga bedeli doono cumar finish lasoo magacaabi doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu soo magacaabi doono marka magacaabista maantan waxay ku soo aaday xilli amni darro ay ka taagan tahay magaalada muqdisho oo dabley hubaysan ururka al-shabaab weeraro joogta ah toogashooyin qorshaysan iyo sidoo kaleeto dhac bareera oo magaalada muqdisho ka taagan hanjabaado kasoo baxaya kooxaha argagixisada suuqyada waaweyn ee magaalada muqdisho qaarkood oo maalmihii ugu dambeeyey xidhnaa oo ururka daacish ay amar ku bixiyeen in la xidho kala shaki mas-uuliyiinta dhexdeeda taagan iyo sidoo kaleeto saamilada siyaasadeed oo qanac la-aan iyadana ka qabtay magacaabistii golaha wasiirada iyo sidoo kaleeto ergeyadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu soo magacaabay dhinaca kaleeto isqaqabsi maamul goboleedyada iyadana ka jira iyo sidoo kaleeto dowladda federaalka ood moodid inay dhinac uga taagan tahay maamul goboleedyada ayuu ku soo aadaya duqa magaalada muqdisho magacaabistiisa waxay sidoo kaleeto maanta uu la kowsaday falal dhowr ah oo maanta gudaheeda ka dhacay maanta oo keliya ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasi oo saraakiil iyo sidoo kaleeto mas-uuliyiin sarsare lagu beegsaday oo qaarkoodna ay dhinteen qaarkoodna ay ka badbaadeen marka balduqa magaalada muqdisho ee hadda lasoo magacaabay xilli adag ayuu ku soo aaday balse waxaan eegi doonaa waxa uu ka bedelo amni darrada magaalada muqdisho kusoo badanaysay 4 bilood ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu joogay kursiga uu ku fadhiyay aad iyo aad bayaan ka soo baxay villa Soomaaliya waxaa lagu sheegay in markii ay dowladda aandhaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo weliba dib u heshiisiinta ay eegtay waxyaabaha ka dhacaya gudaha magaalada muqdisho iyo guud ahaanba gobolka banaadir markii ay la tashatay dhammaan barnaamijka amniga waxa ay magacowday ninka la yiraahdo Yuusuf Xuseen Jimcaale oo horay xilkan u soo qabtay horay ayuu u soo maray dabcan xilkan haatan loo magacaabay oo magaalada muqdisho horay ayuu xil noocan oo kale uga soo qabtay dabcan wax uu isbedelo oo markaas uu sameeyay ma jirto laakiin waxay leeyihiin qolada villa Soomaaliya xilligaasi uu xilka u hayay wuxuu sameeyey dib u heshiisiin iyo weliba xasilin amniga caasimadda wax weyn ayuu ka qabtay maadaama xirfadaasi hore u soo marayna asaga ayaa mudan in laga dhigo mar labaad duqa magaalada muqdisho arrinkan waa uu soo socday horeyna waxaad sheegtay inuu cumar filish u sheegay in xilka laga qaadi rabo amniga magaaladana faraha ayuu ka baxay 3 bilood ee haatan madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu xilka hayay bal adoo soo koobaya sidee u muuqataa maxaa isbedelo uu samayn karaa bay kula tahay shakhsigan oo hore ugu soo fashilmay amniga magaalada muqdisho iyo guud ahaanba inuu wax ka qabto horta sidaad ogtahay muqdisho way isdhex fadhidaa waxaa isdhex fadhiya ururada argagixisada laamaha amniga wasiirada iyo sidoo kaleeto isku milanka ururada argagixisada iyo xukuumadda ama dowladda federaalka ama shaqaalaha hoosaad ha noqdaan ama wasiirra ha noqdaan ama wasiir ku-xigeenaha ha noqdaan la taliyaha ha noqdaan dhammaantood horta baasho way isdhex fadhidaa shakhsi hadda lasoo magacaabay wax weyn kama qaban karo haddii uusan kaashanin shacabkiisa cadaaladna uusan ku dhaqmin islamarkaana uusan soo dhoweysanin shacabka oo uusan samaynin howlkarnimo iyo dadaal dheer uusan samaynin wax weyn horta kama qaban karo cumar finish dadaal badan ayuu sameeyey wuxuu sameeyey inuu laamaha ammaanka iyo sidoo kaleeto uu si dhow ula shaqeeyo mas-uuliyiinta isaga ka hoos shaqeysa wuxuu sameeyey in odayaasha dhaqanka iyo dhammaanba saamiliyada siyaasadeed ee gobolka banaadir uu dhexdooda dhiga nabad wuxuu sameeyey in beelaha gobolka banaadir wadadega inuu iyaga naftirkooda dhexdooda uu masaalix maaragtay uu dhigo dib u heshiisiin uu dhigo intaasoo dhan oo la sameeyey ayaa haddana weli waxaa lagu guuleysan laayahay in magaalada muqdisho amnigeeda uu nabadgelyo noqdo walow hadda 4 bilood ee ugu dambeysay uu ka sii daray madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu imaaday uu ka sii daray dadka qaarkoodna ay qabaan in uu ka dambeeyaba mas'uuliin hadda xilka hayo oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu magacaabay in iyagu ka dambeeyaan amni daradan oo isaga ay ku fashilinayeen duqa magaalada lagu fashilinayay haddana shakhsi hadda la soo magacaabay oo horeyna u soo maray ama hadda weligiiba yuusan soo marin wax weyn horta kama qaban karo haddaan la iskaashanin laamaha amnaanka dhalinyarada cuqaasha waxgaradka bulshada iyo sidoo kaleeto maaragtay ururada siyaasadda dhammaan haddaan la iskaashanin oo gacmo wada jirba wax ku gooyaya aan isku dhinac looga soo horjeedsanin ururada argagixisada ee dhibaatada ba-anka ku haya gudaha dalka Soomaaliya wax weyn horta lagama qaban karo balse waynu eegi doonaa wax qabadkiisa iyo goobaha uu ka bilaabo walow isaga shakhsi cusub uu dhaami karo oo uu yahay shakhsi hadda experience u leh horeyna soo maray xilkan soo qabtay meelaha uu ka bilaabaya ay u cad yihiin oo aan ahayn shakhsi baranaya aan ahayn balse
xaaladda hadda lagu jiro waa xaalad aad u adag oo magaalada muqdisho ay ammaankeedu uu faraha ka baxay dabley hubaysan oo haybtooda aan la garanaynin ay dhinac ka dagaalamayaan weeraro joogta ururada daacish ay soo qaadayaan ururka al-shabaab dhinaciisa uu qas ka wado saamilada siyaasadeed oo tuuno qaba naftirkoodu ay qayb ka noqon karaan ammaan darrada ka taagan magaalada muqdisho sidoo kaleeto isbaarooyinkii horey loogu yaqaanay magaalada muqdisho naftirkeeda qaybo ka mid ah iyada naftirkeeda aad moodid inay hadda dib u bilaabatay dhalinyaro isbaabisho ciyaal weere ay dhahaan naftirkooda ay dhinac dhibaato ka wadaan bal waynu eegi doonaa xilligan adag ee hadda la magacaabay mudanahan cusub xuseen lagu magacaabo hadda la magacaabay wayn eegi doonaa meesha bal uu ka bilaabo iyo waxa uu ka qabto boqolka maalmood ee ugu horeysa ayaana u tirinaynaa waxqabadkiisa iyo wuxuu qaban doono aad iyo aad haddii aynu eegno dhanka dowladda Ethiopia waxa ay soo dirtay dhambaal la yaab leh oo ay Soomaaliya aan dhahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ay u soo dirtay Ethiopia waxaan ognahay inay dagaal la hareeyeen waliba dagaaladii labadii isbuuc ee u dambeysay ka socday gudaha dalka Ethiopia waxa ay geysteen khasaaro aad u tiro badan Ethiopia haatan waxay u jilcday cadawii dibadda iyo waliba kii gudaha bal maxay tahay dhambaalkan ay u soo dirtay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud horta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markuu asagu iskaran waayay oo dhinac uga saftay dalka Ethiopia Masar uu la saftay kooxaha TPLF uu taageeray xisbiyadiisii hore ee dhulka la galiyay uu doonayay inuu soo toosiyo Ethiopia dhambaal ayay qortay oo ku baahisay TV-geeda dalka Ethiopia oo luqadda Ingiriiska ku baxayay ayay ku baahisay dhambaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay u soo dirtay eraya isagu haddii qof siyaasiya uu fahmi karo ayay dushiisa saa ugu akhriday oo ay ku maaragtay ay rabtay inay ugu iftiimiso madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu dib u xusuusto Ethiopia garab istaagga ay Soomaaliya u muujisay isaga wixii la shaqeynayay Ethiopian inay ahaayeen xilligii xilka isagu u hayay 2012 madaxweynaha ku guuleystay dadkii taageerayay ee garabka taagnaa ee soo dhaweynayay Ethiopian inay ahaayeen waxaan hadda ololeysa dagaalku ku socdo Ethiopian inuu yahay kuwa hadda maaragtay Soomaalida ku nool ugu badan ay ku nool yihiin Ethiopia inay tahay oo Masar Soomaali badan oo intaas dhan aysan ku noolayn saami qaybsiga siyaasadeed iyo sidoo kale awoodda badan dadka kule inay Soomaali yihiin in loo baahan yahay Soomaaliya Ethiopia inaysan la ogaado inaysan kala maarmin laba wadan oo darees ah wax wada wadaag leh dhul wada leh isku dad ka dhaxeeyaan dhalasho ka dhaxayso saaxiibtinimo joogta oo soo jirtay oo muddo soo jirtay ay ka dhaxayso ereya noocaas ayay horta Ethiopia ku dul akhrisay in loo baahan yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markuu kursiga imaaday in Ethiopia soo dhaweysto calaqaadkii la soo celiyo la hagaajiyo Ethiopia iyo Soomaaliya laga dhigo laba wadan oo daris oo hadana walaalo laga dhigo balse Xasan Sheekh Maxamuud uu garan maray wadada uu qaadayna aysan faa'iido ugu jirin ereya noocaas oo kale ta dhambaalkoodu sidaas ayuu u qornaa waana lagu dul akhriyay Xasan Sheekh Maxamuudna wali wax jawaaba kama bixinin Ethiopia warqadani waxay ula jeeday in ay xusuusin ay u samayso Ethiopia waxay u soo qabatay dalka Soomaaliya iyo waxay isku yihiin Ethiopia iyo Soomaaliya waxay isku yihiin inay Xasan Sheekh Maxamuud bal ay dib u xusuusiso bal inuu wax ka gartaayay ahayd balse Ethiopia dhinaca kale waxay wadaa iyadu dadaalo ay maamul goboleedyada ku soo dumanayso oo ay rabtay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay godoomiso haddii uu isgartana ay soo dhaweyso haddii isgaran waayo oo Tigreega iyo ururadan argagixisada ay u taqaan gudaha dalka Ethiopia ay u yaqaanaan ay sidaasi ay Xasan Sheekh Maxamuud ula safto sida ilaa dawladda Masar oo dawladda Ethiopia calaqaad xumaa iyada naftirka uu ka dhaxeeyo uu la safto sida uu ku sii wadana ay Ethiopia markaas iyadu haday ujeedkeeda iyo wixii iyada kala gudboon iyo go'aanada iyada gaarka waa inay qaadato marka qoraalkan loo soo diray sidaas ayuu ahaa warbaahinta caalamka dhan baa qaadatay oo aad u hadal haysa Soomaalida iyada naftirkeeda local media oo dhan baa qaatay Ethiopia si weyn bay u hadal haysa bal jawaabta ay dowladda federaalku ka bixisa ayaana la sugaya aad iyo aad shirkii golaha wasiirada ee maamul goboleedyada iyo waliba wasiirka maaliyadda uga socday magaalada Muqdisho waa fashil buu ku soo dhamaaday bal maxay tahay qodobada la isku marlay waxaan horta maalmihii ugu dambeysayba waxaa socday shir ay iskugu imaanayeen wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka iyo wasiirada maaliyadda ee maamul goboleedyada shirka magaalada Muqdisho uga socday waxay ahayd waxa looga wada hadlayay balsaami qaybsiga iyo sidoo kale deeqaha ay caalamku bixiyaan sida loo qaybsanayo ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay u qaybsanayaan iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lagu dhaliilahayay intii hadda 4 bilood ee uu xilka joogay maamulo badan oo ay kamid tahay Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Jubbaland inuu ka goostay dhaqaalihii yaraa ee dowladda federaalka ay siinaysay maamul goboleedyada ee ay ku kabaysay mishaarada iyo sidoo kale
mashaariicaha waxaa la isku mari leeyahay in dowladdii hore ee maxamed cabdulaahi farmaajo ay go'aamisay in 40% ay dowladda federaalka ay qaadato 60%na maamul goboleedyada ay qaataan deeqaha ay caalamku bixiyaan ama raashin ha noqoto ama ha noqoto waxyaabaha ha noqoto lacagaha ha noqoto deeqaha markaasi la bixiyo ee dowladda federaalka gacantooda soo mara sida maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku ay u kala qaadan lahaayeen lacagtaasi 60% ee maamul goboleedyadu waa ay diideen waxayna sheegeen in aysan macquul ahayn oo si isla eg loo qaybsado shanta maamul goboleed iyo dowladda federaalka si isla eg loo qaybsado micnaheedu waxay noqonaysaa 106 loo qaybsaday ayay noqonaysaa marka sidaasi intaasi ayaa la isku mari leeyahay dood dheer kadib shirkaasi fashil ayuu ku soo dhamaaday waxay maamul goboleedyadu soo dhigeen in awoodda ugu badan iyo sidoo kale culeysyada ugu badanba ay ku dhacayso maamul goboleedyada dadka ugu badan ay hogaaminayaan ama ay gacantooda ay maaragtay wax ka sugayaan maamul goboleedyada dowladda federaalkana aan la garanaynin wax ay iyadu qabanayso magaalada muqdisho oo kaliya ay mashaariicaha ka fuliso mishaarada ay bixisay shaqaalaha ay bixisana hal maamul goboleedeed oo kaliya ay la eg yihiin sidaas darteedna aysan soconaynin in 40% iyo 60% loo kala qaato waxayna maamul goboleedyadu iyadu ka go'an in si isleeg loo qaato halka dowladda federaalkana arintaasi ay diiday oo gabi ahaanba ay diiday oo ay soo go'aamisay in 40% sidii hore ee dowladda federaalku ay go'aamisay dowladdii hore ay go'isay in sidaas lagu socdo ilaa iyo amar dambe shirki wuxuu ku soo dhamaaday fashil sidaas ayaana lagu kala tagay mar dambe ayaana dib la sheegay in la isku soo noqon doono kulanka dambana wuxuu noqon doono iyo ajanda dowladda federaalku ay leeyahay doonto laba garanayo qaar ka mid ah wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay sheegeen in ay halis ugu jiraan dadkooda iyo waliba ayaguba ururka al-shabaab oo baalmihii ugu dambeysay bilaabay istirnaaceeb bal maxay tahay arintan adoo noo soo koobaya waqtiga yar dartiis horta wasiir hagle ninay dhahaan wuxuu sheegay in shabaabku ay bilaabeen istirnacayb iyo sidoo kaleeto in qabiiladooda si toosa loo bacsanayo oo si toosa loo weerarayo oo ciyaalka iyo haweenka laga dhamaynayo wasiirkan wuxuu ka soo jeedaa gobolka Hiiraan ayuu ka soo jeedaa maamulka Hirshabeelle maalmihii ugu dambeeyayna shacabkaasi hubka ayay qaateen waxayna la dagaalayeen ururka argagixisada ee shabaab mas'uuliin ayay laayeen waxay ka qabsadeen maxkamada sarsare oo shabaabka ay ku laayeen deegaanadaas ayay qabsadeen saldhigyo waaweyn baa la burburiyay amiire ayaa la laayay qaarna waa la qabtay shacabka marka sida mutadawacnimada u badbaadinaya dadkooda diintooda iyo dalkoodaba u badbaadinaya ishubeeye iyaga iskoodu istaagay ururka argagixisada la dagaalaya ayaa waxay bilaabeen shabaabku in ay shacabkii marka ay dhameeyaan ilmaha maatida dhaafi maayaan haween dhaafi maayaan duqay dhaafi maayaan waxgarad dhaafi maayaan ciyaal yaryar oo laayeen baa waxay ku sheegeen inay u adeegahayeen khawaarijta bay dhaheen atmis ama ciidamada atmis ee cadowga ayay u adeegayeen bay dhaheen ururka argagixisada warkooda bayaanka ka soo baxay marka wasiirku marka wuxuu sheegay xaaladda ay ku sugan yihiin maamulka Hirshabeelle shacabka Hirshabeelle iyo gobolka Hiiraanba xaaladda ay ku sugan yihiin waa xaalad loo baahan yahay in la badbaadiyo oo Soomaaliya oo dhan ay u soo gurmato waxayna bilaabeen istirnacayb cidda qabiilada daga Hirshabeelle cidda qofkii ka soo jeeday arkaan bay inay iska dilaan oo ay dhahan waxaad u adeegaysaa cadowbaad u adeegaysaa aad iyo aad ba mahadsan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya safarkiisii tobnaad ayuu ku tegayaa wadanka Sacuudi Carabiya halkaasi oo uu kaga qayb galay isla markaana uu kaga hadlayo xaaladda guud ee dalka Soomaaliya iyo abaaraha dhanka kalena wadanka Ukraine oo la daaladhacayay dagaalo iyo waliba colaad halkaasi ka aloosan ayaa markii ugu horeysay taageero la yaab leh u muujiyay dalka Soomaaliya waxaana uu sheegay 128,000 oo tan oo raashin ah inuu soo gaarsiin doono dalka Soomaaliya oo haatan la ildaran macaluul ka dhalatay 4 sano ee u dambeysay oo wax rooba uun ku sakadiin gudaha dalka Soomaaliya gudaha qodobadaasi ayaa warkeena u dambeeyay intaan kan xiga ku kulmi doono waxa ay naga tagay sidaas iyo amaanaha